gudoomiyaha hay'adda dhawrista tayada ee Somaliland Mudane Muuse Xasan Xaaji Yuusuf ayaa xafiiskiisa kulamo gooni-gooniya kula yeeshay ururka iskaashatada warshadleyda ee Somaliland iyo waliba ururka ay ku midoobeen ganacsatada ka ganacsata daawooyinka ee Diwa. Ugu horeyna Muuse Xasan Xaaji Yuusuf gudoomiyaha hay'adda dhawrista tayada oo ay weheliyaan gudoomiye ku-xigeenkiisa iyo komishanka dhawrista tayada waxay kulan kula qaateen saacado dhowr qaatay ururka ay ku midoobeen warshadleyda Somaliland. Markii kulankaasi soo idlaaday oo saxaafaddu dibadjoog ka ahayd waxa la hadlay gudoomiyaha ururka warshadleyda ee Somaliland ay ku midoobeen Mudane Maxamed Sheekh Cumar. hay'adda dhawrista tayada ayaa noo yeedhay marka waanu isbaranaynay waanu kala war qaadanaynay dawana shaqa naga dhaxayso oo sidii aan u wada shaqayn lahayn baanu ka hadlaynay anagoo warshadihii ka socona ayaan u nimid de sidii aan u isbarasho bahayd sidii aan u wada shaqayn lahayn aan hawsha u wada qaban lahayn looga wada shaqayn lahaa nolosha dalka de qof waliba ka mas'uul. Muuse Xasan Xaaji Yuusuf gudoomiyaha hay'adda dhawrista tayada oo goobta ka hadlay ayaa ku dheeraaday muhiimadda uu lahaa kulankaasi. markaanu tayadooda kala shaqayno waxa idii furmaya suuqan imika Somaliland qura ma aha laakiin suuqa caalamka oo dhan way wixii wuxuu noqonayaa wax la hubo oo la baaray oo standard caalamiya lagu diirada lagu saaray. midda kale waxa weeye inaynu waxana soo saaraysaan ma agabkana soo saaraysaan warshadu ay soo saarayaan in aynu baadhno si ummadeeni waxaan wax yeelayn ayna u gaadhin qof muwaadin leeyahay noqoto ama warshad qof ajnabi leeyahay noqoto inaynu soo dhaweyno dhiiri gelino aynu standardization ama sinaan aynu sameeyno warshadaha wax soo saarayo oo dhan ayaa horta anaga naga balama hadii Ilaahay ka dhigo. intaasi kadib mar kale gudoomiyaha hay'adda dhawrista tayada Mudane Muuse Xasan Xaaji Yuusuf oo ay weheliyaan gudoomiye ku-xigeenkiisa iyo xubnaha komishanka dhawrista tayada Somaliland waxay kulan la qaateen ururka Diwa ee ay ku midoobeen ganacsatada ka ganacsata daawooyinka. markii kulankaasi soo idlaaday waxa warbaahinta faahfaahin ka siiyay waxyaabaha ay gudoomiyaha ka wada hadleen Yuusuf Ducaale Bare gudoomiyaha ururka ganacsatada ka ganacsata daawooyinka ay ku midoobeen ee Diwa. waxa laga wada hadlay runtii sidii tayada looga wada shaqayn lahaa dawada arintaasna runtii si fiican baa la soo afkartay anagoo hore uga wada hadalay balana noga yaalay iminkana la siyaadkay arintii runtii waxa weeyaan diyaar xaq ayaga markaan inaga ku hadlaya afka ganacsatada dawada soo dejisa oo gudoomiyahoodii waxaan ka cadeynayaa inaanu diyaar u nahay inaan la shaqeyno hay'adda dhawrista tayada Somaliland. gudoomiyaha hay'adda dhawrista tayada Muuse Xasan Xaaji Yuusuf oo goobta ku hadlay ayaa ku dheeraaday muhiimadda ay leedahay dhawrista tayada daawooyinka dalka la soo geliyo isagoo ganacsatada uga mahadnaqay sida ay u soo ajiibeen kulankani ay la yeesheen. xog waraysigaas iyo macluumaadka aynu kala qaadanayna insha Allah Ilaahay ha inooga dhigo mid badbaadiye ummadeena ka badbaadiye wixii wax yeelaya khaasatan dawada. waxaynu isla qaadanay ama aanu idii sheegnay go'aan ka soo baxay hay'adda dhawrista tayada oo laga bilaabo 1 February 2019 dawo bila documents ama dawo bila certificate of origin inaanay wadanka Jamhuuriyadda Somaliland soo galin. go'aankaas oo aynu isla qaadanay waa go'aan aanu insha Allah idii soo gudbinayno qoraalkiisii laamaha dawladda ku shaqeeyna aanu gudbinayna hadii Ilaahay ka dhigo. go'aankaasi waxa weeye dawada wadanka soo galaysa waa inay horta sifo sharciye ku soo gasho oo caalamku dawo wadan ka baxda oo wadan kala tagta oo aan lahayn certificate of origin ma jirto. waxa kale oo jira dawooyinku waxay leeyihiin wax la yiraahdo certificate of analysis in la soo baaray taasna anagu insha Allah ka hay'ad ahaan diyaar baan u nahay inaanu laabkii aanu helo oo aynu baadhno dawada wadanka laga isticmaalayo. Luqmaan Maxamed Farax Bulsho TV